abaartuna dalka aad bay ugu xumayd oo markii ay wada cuneen haruurkii ay Masar ka keeneen ayaa abbood ku yidhi bal taga haddana oo cunto yar inoo soo iibiya markaasaa Yahuudda la hadlay isagii oo wuxuu ku yidhi ninkii aad buu noogu digay oo wuxuu nagu yidhi wejigayga ma aad arki doontaan in walaalkiin idinla jira mooyaane haddaad walaalkayo la raacisid waannu dhaadhacaynaa oo cuntaannu kuu soo iibinaynaa laakiinse haddaadan isaga dirin annagu dhaadhaci mayno waayo ninkii wuxuu nagu yidhi wejigayga ma aad arki doontaan in walaalkiin idinla jiro mooyaane markaasaa Israa'iil wuxuu yidhi maxaad sida xun igula macaamilooteen oo aad ninka ugu sheegteen inaad walaal kale leedihiin markaasay yidhaahdeen ninku wuuna haybsaday annaga iyo xigaalkayaga oo wuxuuna yidhi aabbihiin weli ma nool yahay walaal kale ma leedihiin oo annana waxaannu ugu jawaabnay wixii uuna weyddiiyey waayo miyaannu sinaba ku garan karnay inuu nagu odhan doono walaalkiin keena markaasaa Yahuudda wuxuu ku yidhi aabbihiis Israa'iil wiilka i raaci oo markaas waannu kici oo waannu tegi doonnaa inaynu noolaanno oo aynaan dhiman annaga iyo adiga iyo dhallaankayaguba anigaa damiin u noqon doona oo anaad i weyddiisan doontaa isaga haddii aan kuu keeni waayo isaga oo aan hortaada soo joojin waayo aniga eeddu ha i saarnaato weligii waayo haddaanan raagin hubaal hadda mar labaad waannu soo noqon lahayn markaasaa abbood Israa'iil wuxuu iyagii ku yidhi hadday haatan saas tahay bal tan yeela haddaba midhaha ugu fiican oo dalka weelashiinna ku qaada oo bal ninkii hadiyad ugu geeya waxoogaa beeya ah iyo waxoogaa malaba oo xawaash iyo malmal iyo lows iyo yacab gacantiinnana lacag labanlaab ah ku qaada oo lacagtii jooyadihiinna afkooda lagu soo celiyeyna haddana gacantiinna ku qaada waayo mindhaa waa la soo qaldamay walaalkiinna kaxaya oo kaca oo bal haddana ninkii u taga oo ilaaha qaadirka ahu naxariis ha idinka siiyo ninka hortiisa inuu idiin sii daayo walaalkiinnii kale iyo Binyamiin oo haddaan carruurtayda ka gablamo anaa gablamay markaasaa nimankii waxay qaadeen hadiyaddii lacag labanlaab ahna gacantooday ku qaadeen Binyamiinna way kaxeeyeen wayna kaceen oo Masar tageen oo waxay hor istaageen Yuusuf oo markii Yuusuf arkay Binyamiin oo iyaga la jira ayuu wakiilkii gurigiisa ku yidhi nimanka guriga soo geli dabadeedna neef qal oo diyaari waayo duhurka nimanku anaga ila qadayn doonaan markaasaa ninkii yeelay wixii Yuusuf ku amray oo ninkii wuxuu nimankii soo geliyey gurigii Yuusuf nimankiina waa cabcabsadeen maxaa yeelay waxaa la soo geliyey gurigii Yuusuf oo waxay isku yidhaahdeen lacagtii markii hore lagu soo celiyey jooyadaheenna weeye waxaa laynoo soo xaraystay wuxuu doonayaa inuu wax inoo qabsado oo uu ina dhaco oo uu ina addoonsado dameeradeennana qaato markaasay waxay u soo dhowaadeen wakiilkii guriga Yuusuf oo waxay isagii kula hadleen albaabkii guriga waxayna ku yidhaahdeen sayidkayagiyow markii hore waxaannu u soo dhaadhacnay inaannu cunto iibsanno oo markii aannu meel aannu ku hooyanna gaadhnay ayaannu furnay joonyadahayagii oo bal eeg nin walba lacagtiisii waxay ugu jirtay joonyadiisa afkeeda waxay ahayd lacagtayadii oo miisaankeedii dhan yahay oo haddana gacantayadaannu ku soo celinnay oo lacag kale oo aannu cunto ku iibsannana waan la soo dhaadhacnay annagu garan mayna kii lacagtayadii ku riday joonyadahayagii isna wuxuu yidhi nabataa idiin ahaato ee ha cabsanina ilaahiinna ah ilaaha aabbihiin ayaa maal idinku riday joonyadihiinnii
anigu waan helay lacagtiinnii markaasuu Simcoon dibadda ugu soo bixiyey iyagii oo ninkii baa nimankii soo geliyey gurigii Yuusuf oo biyo siiyey kolkaasay cagamaydheen dameeradoodiina cuntuu siiyey markaasay diyaariyeen hadiyaddii intuusan Yuusuf duhurkii iman waayo waxay maqleen inay halkaas wax ka cuni doonaan oo markii Yuusuf gurigii yimid ayay gurigii ugu keeneen hadiyaddii gacantooda ku jirtay markaasay u wada sujuudeen oo wejiga dhulka saareen isla markaasuu nabdaadiyey iyagii oo wuxuu ku yidhi ninkii duqa ahaa oo aad sheegteen oo aabbihiin ahaa ma ladan yahay weli miyuu nool yahay markaasay yidhaahdeen addoonkaagii aabbahayo ahaa waa ladan yahay welina wuu nool yahay kolkaasay madaxa foorariyeen oo ay u sujuudeen markaasuu intuu indhihiisii kor u taagay wuxuu arkay benyamiin oo ahaa walaalkiisii hooyo oo wuxuu yidhi kanu ma walaalkiinnii idinku yaraa oo aad ii sheegteenba oo wuxuu ku yidhi walaalkaygiiyow ilaah ha kuu roonaado markaasuu Yuusuf dhaqsaday oo goobtay meel uu ku ooyo waayo walaalkiis wuu u beernuglaaday oo wuxuu galay qowladdiisii oo halkaasuu ku ooyey kolkaasuu intuu fool dhaqday soo baxay oo intuu adkaystay ayuu wuxuu yidhi cunto noo soo dhiga markaasay isagii gooni ahaantiis ugu dhigeen iyagiina gooni ahaantood masriyiintii isaga la cuntayna gooni ahaantood maxaa yeelay masriyiintu lama ay cuni karin cibraaniyadda waayo taasu masriyiinta karaahiye bay u ahayd oo waxay hor fadhiisteen isagii cunadka sidii cunadnimadiisii ahayd buu u fadhiistay kii ugu yaraana yaraannimadiisii markaasaa nimankii midba midka kale eegay oo ay wada yaabeen markaasaa hortiisa waxaa iyagii looga qaaday dhowr qaybood oo cunto ah laakiinse intii Benyamiin 5 jeer bay ka weyneed kuwa kale intoodii kolkaasay wax cabbeen oo ay la farxeen isagii